بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام غيرت شرفت لما يلقستد كسجنتي معايا برارك وارا وقرنتي ولا صلي حبيب كنا محمد صبانه صلى الله عليه وسلم عمري داري عبادة صباني عافمات قبك وارا isku soo noqod wanaagsan muddo aan xoogaa kala mashquulnay oonan fiidiyoyo badan idin soo gelin soonka iyo nimcadii iyo hawshu way badnayd alxamdulillaah hadda insha Allah wixii maanta ka dambeeya fiidiyoyadiina waxay noqon doonaan sidii caadiga ahayd ay taxanaha noogu ahaan jireen hadduu Ilaahay idmo Allahumma salli ala Muhammad maanta waxaan idin wadaa keegan quruxda badan oo isbuunyada ah soft keega kaala iska araga ayaan idin wadaa dolce isbuunya la yiraahdaa ama la dhahaa Allahumma salli ala Muhammad runtii inaba caadi ma ahan video dheer ama video ma garanaysaa dhameystiran waa wax yar oo goos ah oo asag markii aan diyaariyay kadib aan idinkaga soo duubay markii hore ma aanan duubin aan diyaarinayay marka waxaan jeclaystay in aan idin la wadaago runtii anigu waan ka helay sababtoo ah aad iyo aad buu u jilicsan yahay asaga dhan isbuunyo weeye waxaad u malaynaysaa asaga dhan inuu yahay suuf fuush buu gudaha ka yahay wax caadiya ma ahan runtii ukun badanna waan ku daray oo waxa keenaya in uu noqdo suuf waxa weeyaan ukun badan baan ku daray ma badno weyna keegu uu yar yahay laakiin ukunta ku daray 6 xabo ukun ayaan ku daray sababtoo ah in uu keeg nafaqo leh noqdo ayaan rabay soo jeedaanba ma weyna oo keeg hadda saa u weyn ma ahan laakiin nafaqada ku jirta ayaa weyn ama badan ma sha Allah inaba caadi ma ahan inaan markii hore duuba ma aanan rabin laakiin markii aan diyaariyo oo i cajabiyay ayaan xaasir wax yar clip yar aad uga duubtid asxaabta ay ku nastaan runtii keegan aniga macmacaanka mararka qaarkood jirka u baahan asagii macmacaan kale ayaan isku dari doonaa insha Allah oo aan cuni doonaa maadaama bildan aan wax macmacaana la cunin oo habeenkiina afurka aad aragteen wax qumandi lama cuni karo maalinkiina waa la soomanaa marka maalinkii ciidda iyo maalinkii ku xigtay iyo waxaan ku macmacaanka waa lagu yaacay jirkaan u baahan oo jirku uu tabaya macmacaanka sida shaaha iyo kafeega ay dadka u qabtaan si la mid ah ayuu macmacaankuna dadka u qabtaa oo jirku ugu baahan yahay oo wax jirku u baahan yahay inuu ku nasto marka insha Allah taala aan sameeyay sidaan u sameeyay waxyaabaha aan ku daray uu ka kooban yahay keegana suufka isbuunyada ah waan idin soo gelin doonaa hadii Ilaahay idmo asagu fuul oo dhameystiran gadaal ayaan idin ka soo gelin doonaa hadii Ilaahay idmo si fiican baan idin kugu soo duubaya insha Allah waxaan idin sheegayaa maanta wixii ka dambeeya in aan fiidiyoyadeeni iyo isla socodkeeni ay noqon doonaan sidii aan hore aan ku soo noqon doono jadwalka aan dib u sixi doono haduu Ilaahay idmo adinkana maxaa la idinka rabaa in aad ismuujisaan team Faa'iido TV aad ismuujisaan oo subscribe-ka iyo share-ta iyo comment-iga farxadda iyo dhiirigelinta leh oo garab istaaga leh intaba idna baqaylin asxaabtiina aad fiidiyoyadeeda la sii share gareysaan runtii aad baad ugu mahadsantiin sida samir kale oo noola joogtaan iyo sida quruxda badan oo u daawataan fiidiyoyadeena insha Allah nooga xirnaada dhinaca TikTok-ga ayaan tan laftiisa uu dansan yahay waan ka caajisnay waxba ma soo gelina laakiin insha Allah maanta wixii ka dambeeya hawshu way soconaysaa dhinaciina ha ka socoto anagana dhinacina way ka soconaysaa aan wada shaqeyno xogaa ciladaha jirta oo TikTok ku timid TikTok run ahaantii waxa ku xirnaa markii hore lambarkii ku xirnaa ayaa waxa dhacday in uu dhumay la soo celin waayay kadib markii lambarkii uu dhumay lana soo celin waayay ayaa waxa dhacday in uu meeshii wali ku xayiran yahay laakiin uu shaqeynaya wax waa la soo gelin karaa waa caadi laakiin lambarkii maadaama uu soo noqon la yahay TikTok hadda xogaa ciladaas naga haysata oo inaan lambarkii hore ka bedelno si aan lambar noo shaqeynay aan ugu xiran ayaan rabnay runtii waa isku dayay laakiin ima isa suurta gelin kulay farsamadaas cidii iga faradhuuban ama xog u garanayso oo iga caawin kartana waa jeclaan lahaa in ay hadii ay jirto ama ay videogagan daawato ay iga soo caawiso ay comment-iga ama luqa igu soo qoraan insha Allah aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa jazaakumullahu khayran